raggii mudanka u ahaa fanka jaldi samaynta sheekooyinka jaldiyadoodu hirgaleen ee hal-abuurka lahaayeen xilligii casrigowga waxaynu ka xusi karnaa oo calanka u siday Frank Powell. waxaa lagu xasuustaa jaldiyo ashqaraara hadda uga waa xilli aan tiknoolajiyad horumarsani jirin. jaldiyadaas oo laftoodu ah fan sidiisa nooga baahan sharaxaad iyo isdultaag oo marxaladii horumarka ee laga soo gudbay dahaadhadii adkaa iyo maradii jaldiga laga dhigan jiray. waxay ku sameeyeen 1939 waqtigii dardarta sheekafaneedu xoogeysanaysay ee suuqa iibka laga dareemay dhaqaaqa jira. Frank wuxuu ahaa cidda hal-abuurkeedu soo jiidashada u sameyn jiray akhristayaasha. intaa kadib xilli ku sameeyay 60kii iyo waxa islaana qaaday shirkadii daabacaad ee Penguin oo suuqa soo gashay iyo hal-abuuro badan oo farshaxan leh iyo nashqadeeyayaal isku ah. shirkadan waxaa gaar ka dhigay cidda nashqadeeyaha oo ahayd ee loo shaqo bilowday iyo jidka ay u doortay. Penguin aasaaska nashqadeynta jaldiyadeeda wax soo saar waxaa fixer ka jooga Germano Fassetti oo reer Italia siiba Milano ah. bilowga geediga Penguin ee midabka dhexda liimiga ah ayaa suuqa iyo indhaha akhristayaasha soo gaaray. barashada iyo soo jiidashada Penguin waxaa leh Germano. waxaan sidoo kale xusi karnaa David Balham oo ah nashqadeeye ahna waqtiga Penguin jiilkii hana qaaday ee fartuu fadhiday. isbedeladaas iyo kacdoonka nashqadeed ee jaldiga waxaa markasta ku lamaanaa cabirka jaldiga, horumarka tiknoolajiyadda oo kordhayay iyo si guud horusocodka fanka jaldiga buugga hababka loo dhigayo iyo hal-abuurka lagu laliyo. ilbaxnimada aadanaha waxyaabaha ugu mudan weeye ereyga dhiistiisu. horumarkiisa iyo heerarkiisa koritaanna waa mid isu soo tarayay. waxaynu ka garan karnaa heerarka uu soo maray in buug waraaqo ah oo bogag badan leh la soo saaro, in la helo mashiinkii daabacayay, in maskaxda loo daaliyo sidii laysu qabasiin lahaa tiro badan oo waraaqo ah. doorka warqadda lafteeda ayaa isna xusid mudan. dejinta iyo abuuridda faraha ama typefaciskuna waa qayb ka mid ah. in laga fikiro daboolka guud ee waraaqahaas iyo sidii daboolkaasi muujin qurxoon oo fahan curini weheliso ugu noqon lahaa gudaha buugga wixii ku yiil, iyaduna waxay ahayd qodob mar dambe lagu baraarugay. waxaa dabada ka riixayay baahida qoraagu u qabay in ay akhristihiisa isgaadhaan iyo suuqa buugga oo markaa hooseeyay. fanka qurxinta iyo hal-abuuridda jaldiga buugagga haddii dib loo raaco meelaha ay ka dhaqaaqdo waxaa ka mid ah sheekafaneedda malawaalka ahi waxay ahayd mowduuca caalamka u sida dhammaan muwaadiyada ereyga ee buugga laga dhigo. iyada ayaa kacdoon u ahayd oo lagu bixiyey hal-abuur saameyn ku leh mowduucyada kale. waa xilli aan wax kasta marxalad tiknoolajiyadeed u gudbin. waa xilli nashqadeeyaha xilligaasi caqabado badan hor yaaleen si aysan bilaa curin ka dhigin. jaldiyada sheekafaneedda Soomaalida in lays odhan karay hal-abuur baa ku jira ama isbedel kacan oo qurxineed bay abuuri kareen oo muwaadicda kale ee wax laga qoro amaba ilaa jiilka hadda ayay wax ku darsan kareen. waa maanafay oo hal-abuur farshaxan leh. waxaan arki karnaa iyadana aanadii nageeye, sidoo kale roge, sheekada ladh iyo inta kale ee la xilliga ahayd. bal aan labadaa hore u tusaalo buuxa u ah fashilka jaldiyada sheekafaneedeenna aan eegno. waxay ka midaysan yihiin farshaxan u taagan gudaha buugga wixii ku yiil, laakiin waxay ka siman yihiin in hal-abuurkaas iyo jaldi habboonaantaasi khalkhal abuurtay, in aan daabacaadoodu isku jaldi ahayn. yacni aanadii nageeye ama maanafay daabacaad kasta jaldigeedu wuu isbedelayay. ma farshaxanada jaldiyadooda ayaan wax aan la lahayn oo la iska isticmaalay ah mise ma garan karno. su-aalo badan baa halkan ku jira, uma hayno jawaabseeda. laakiin waxaa istaraysiin u baahan in sheekafaneedda Soomaalidu bilowgii aysan hal-abuur helin, inta heshayna ma xasilin. kolkaas sheekafaneedda Soomaalidu wax saameyn ah oo ay ku yeelatay daabacaadaha ama goobaha buug soo saarayaasha ah si guud ma jirto. in ay muwaadicda kale riixdaana ma dhicin. waan ogsoonahay doorka uu leeyahay jaldiga buuggu, haddana weli heer dhabnimo oo qiimihiisa ku qotobo ma siino. haddii ereyga dhigan aynu jecelnahay soo ma ogidin inay noo furan tahay in jaldiga buugga ayna soo gaadha ku hakanno oo wax iska weydiino, waayo isaga ayaynu ku dooranaa buugga faraha badan ee buuggu ka kooban yahay.
iyo kuwa la midka ah miiska iibka la saaran. In la helo qaabayn heer sarreysa oo ku aadan jildiga buugga la rabo in akhristaha la horgeeyo waa lama huraan. Waxaa tahay qoraa ama turjumaan, waxaad u baahan tahay jildi u qalma buuggaaga. Haddaba ogow in ay kaaga baahan tahay tamar iyo fikir la mid ah kii aad ku bixisay ereyga qoristiisa. Ma aha wax iska fudud oo howlihii buugga ee aad soo qabatay ku khatimayso. Waa marxalad kale oo buuggu maro oo iskeed hal-abuur u baahan. Waxay dhahaan qof kasta hadduu heli lahaa fursad uu ku doorto weji cusub oo la dhaho waxaad haysataa fursad wejiga lagaga bedelo, ee karnam sheeg wejigaad rabto inaad dadka ku dhex joogto. dhabtii wuxuu dooran lahaa weji muuqasho ahaan qurxoon, loo istaago, la ixtiraamo, soo jiidasho leh, waa sida la filan karo. tabtaas weeye jildiga buuggu. Waa fursad hal mar ah oo buugga loo dooro, laakiin qorayada Soomaalida ahi uma dooran buuggooda weji u qalma oo way sahashadaan oo ku ciyaaraan. runtii inta ay kas ka tahay waxaa ka badan sidaan isleeyahay inta ay ka tahay aqoon xumo fudaydsi uu weheliyo.